marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku siiyo qof wanaagsan ogow in aysan ahayn oo kaliya hadiyad balse ay noqon karto sidoo kale imtixaan. Ilaahay waxa uu ku siiyaa qof ku dhageysta ku daneeya oo si dhab ah ku jecel wuxuuna sugayaa in uu arko sida aad uga jawaabi doonto nimcadan sababtoo ah nimco kasta waa fursad aad ku mahadnaqi karto. qalbi kasta oo qurux badan oo uu Ilaahay ku soo diro waa ammaano inta uusan noqon irzaaq. haddii aad naxariistaas ku wajahdo si qabow daacadnimadana si taxadar la'aan ah waxaad iska weecisay nimcadaas adiga oo aan dareensanayn. laakiin haddii aad dhowrto qalbiga uu Alle kugu sharfay wuxuu kugu kordhin doonaa mid asaga la mid ah. nabigeenna nabadgeliyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee waxa uu yiri qof aan dadka u mahad celin Alle uma mahad celiyo. noqo mid naxariis badan oo noqo mid mahadnaq badan waayo qaabka aad ula macaamilayso qofka ku jeclaaday waa cadaynta ugu weyn ee ah sida aad Alle ugu dhowdahay. Soomaalidu waxa ay tiraahdaa tuke nasiib uu caana ku helo waa uu leeyahay laakiin nasiib uu ku cabo ma lahan waayo inta ku istaago ayuu iska daadiyaa. waxaa jira dad tukahaas oo kala ah waxaa jira dad nasiib u yeesha qalbi inta kale laga qariyay oo asaga uun arka laakiin marka uu hantiyo oo uu ogaado in qalbigaas uu dhexdiisa ku abuuran yahay u qaata wax iska caadi ah ama qofkaba uu arka doqon ama dabaal. haddii aad hesho qalbi ku jecel oo nasiib aad u yeelatay ha ku cayaarin. qalbiyadu maaha raqiis waa qaali waxaana og kan raadinaya qalbiga adiga ku jeclaaday.